ogaada ina allaha yabsud yadahu billayl liyatuuba musii'u nnahaar wayabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabu lghayri kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee khayrkii caabuda ee shahawaadkiisiiyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanaya maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa icdaadii addoommahaygiiow min maalinkaan ini abuuray ilaada adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii iyo aamus waan argoosanayaa ba ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa miyay kuwii arsaaqadaydu cunaya keyrkayna caabudayay kuwii doolarka caabudaya doolarka salaada ugu dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tii cabdullahi mati tacisa cabdu dinaari wadirham buu nabigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudaya khasaaro hogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficilsamaya islaamnimadii daaqada ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltay mireetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naaficdeeda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeeni baabise ma aakhira wax kuu tari markaas maxaa kaa ohinaya wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaa iga ohinayay buui adigoo rasuulka ilaahaya ayaa dhagaxdu feedhaha kaa qabanaysaa markaasuu nebigu ku yidhi yaa cumar maad iga sikisan tahay aniga may kallaa kaama sikisaniye waxaa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badanna inay dhagaxdu feedhaha kaa qabato kisra iyo kaysarna siradahaba ay ku seexdaan jawaabta dhegeyso walaalkayga muslimka wuxuu yidhi yaa cumar amaa tardaa an takuna lana alaakhira walahum addunya yaa cumar maad raalli ku ahayn inay raaxada adduunyada iyo ku lixdanka sano ay qaataan inaguna raaxada aakhira aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socota ka dambe ha kula weynaato tanna ka teg laguma le ta dambe hadday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka intay lacagta u ziyaado raaxadu uma ziyaade ogow hadba qofka intay adduunyada u ziyaado walwali walbahaarkaa ku ziyaada hadba qofka intay iimaanka iyo diinta iyo qurbi min allahi ugu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man camila saalixan min dakarin aw unsa wahuwa mu'minun falanuxyinahu xayaatan tayiba qofka camal wanaagsan la yimaada camal wanaagsan shantaa waqti oo jamaca ku tukata ayaa kamid a camalka wanaagsan min dakarin aw unsa labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo baa ilahay labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo wahuwa mu'min xaalo uu qofkaasi mu'min iyo iimaan leeyahay falanuxyinahu xayaatan tayiba waa ku noolayne oo ku noolayne nolol lagu noolaadato ugu wanaagsan mufasiriintu waxay idhahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbigoo kuu dega arsaaqada kugu fillaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexdaa wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo camal saalix haddii dadka laga helo iimaan iyo camal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso ma aha adduunyada kaa nuqsaamayse bal adduunyada way kuu ziyaadaysaa raaxa kuu ziyaadaysa amnigaa kuu ziyaadaya man kaanat fi dunya hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa ma kutiba lahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi adduunyada qabo uu ka fikira aakhiradii runta ahayna daaqada ka saare iska ilooda labada indhood inta udhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbilciza ku kala shaydhiya adduunyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi aakhiro
جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه صدنا إلهي بسوه صدوية وأتته الدنيا وهي الراغمة الجيد الوحيوت ما بايرو صد اللي سنة وصعتيت ما داور رسولكم هكذا جسد طاعات إلهي والله يمسلكم دين سنوحي إلهي نوصيي سيادون كان يأخرها نقول لي دانه منافع الدين منفعات الدين آخرة كنية كمان بالعبنتين أدويدنا دين سلقوا درقيا أدويدنا دين عز لقوها ليا أدويدنا دين الراحة لقوها ليا أدويدنا دين أمي النبي لقوها ليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان تريد وربنا طاعب إلى واحد قد في صوام قرية اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هذا هنقول ملك أمرته اسكدا أرمنا انتو تسقى كويدو هذا السماء تسقى لغوه سيغو تدونا تسقى كبسبيو كوكور المسو غديس أغسر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبك يريها الزلم حوقا عقلك عمرك الديدها كبيعينه كالريمو وآخر هذه السيقن أرزاق دادو هذه اللباح فودي ستالو أيضا كو إيمان ليسي لا تعجلن فإن الرزق ليس بالعجل هذا الدقن أرزاق دا حوقي قصف لكم إليه رزق مكتوب باللوح مع الأجل أرزاق دادي عمرك روحي كوكورين الله محفوظك مد من يسد الله أرزاق دادو دمي ستب ما هنا لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لها الرزق يسقى نسودنا لها لكن بني هذا كان أسكدك دقي مرول وحول بدك بكدون إياه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفرسي قفكس مسلم عيال لقربا إنه إيمان في سيلة وصلو إنه إيمان في الجديديو إنه إيمان سيدنا عمر رضي الله عنه أيا من يهودي وصاحب أيهين وريبني قريدو مدينة صومري كلمات دينتي النبي موسى كامل أيوك الصوقري وهو صوت لمساجد في النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ثابت النبي وغضف الديب ويمدي ألا أعرضها عليك يا رسول الله يا رسول الله مكوبا لقاء لغيبني قريدو صاحبا أيضا كلمات توراة كالصوقري فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في النبي يستدل ماذا كيلا يستدل ماذا في رسولك عبد الله باير يا عمر فتلتك أمك وإذا قبلت نبي وجهي سميانا ميانا العرب كدري منه عمرون نحي وغدبوا طوري وحوير رضينا بالله ربا إلهي ربي نمدي سرالبا كل قلي وبالإسلام دينا دين الإسلام كانوا وكوقنا علي والرالبا كنا هاي بقنا هان رالبا نقولنا عقيدة علمي عبادة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيا نبي محمد رسالة دي سي نبي سنة وكوقنا علي بالرالبا كنا هاي فسر نبي هو فرحي من بركيبه فولي وحوير النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا أخي دقيسو بقى بوحدها هين والله اسكوي كيسيو دكين اسكوي كيسيان اسكدايه انظر هذا النبي وقال عليه الصلاة والسلام لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم بي هذه ما أنت النبي موسى وندح من لها أنا وندح تاجن وأدي السجر راعي لها يدين وانها الله جنب رسولكم
أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين نصيب آيات إثمين برو مده آكه لي نصيب آيات إني هاي برو النبي آكه شاب رسولكم هذه النبي موسى ما أنتم إيمان لها وشريعة دي في التوراة ما إيمان لها وذلك يجتك لهيدين ودستك الراعي لهيدين وأنا الله ودين برسولكم أنتم حظي من الأمم أمدي ومدها أبو خير بالنيد أمدها أبو رتانك ومدها أبو دنبيسا جنة نقلتانك أبوها الرئيسة ومدى الجنة إنت بدن دقيسة ما داموا وتهين نصيب أيها نقول النبي نصيب كي كيسي ما داموا أن يقول هاي نلقي النبي أبو دنبيسي إمام في أنبياء ما داموا نهي نصيب أيها يقول هشام برسولك عليه الصلاة والسلام الشريعة دي دين في دين من لدي دا هي السنة دي طريقة دي كوقنا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وإحنا قد بدلن كرامة جرو طريقة ديسا أمدي سيبا إلى هاي نقدي ومدها أبو خير بدن أنا وحنبي حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها جنة النبي يدقل ما ينوى لك حرم إلا عنه أن كقل ما هنا وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخل أمتي أمدون الجنة قل ما ين إلا أمد يدوها قسم ما هنا قبورها أي نبي زيارة بقيع مركز أدعي وديت له أني رأيت إخواني وحان جعل علي بولن جعلي سنها إنه ولا لها أركلها أصحاب توحي كورادين أولسنا إخوانك لأنك ولا لها هين لا أنتم أصحابي إنكم أصحاب تيباتهية ولا لها وكو عني قد بدأي من دونا أي رومين دونا يكو عني يارب رسولكم يدو قرندو صحابة وحيد هذا بدكاس ما بد أركن هذا يكون كوما يارك سيدو قرندو قيامها halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiinaysa ayay banka halkay ugu yimid doonaa rasuulku boqoliyo 20 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu dadka ay jannuhu waa boqoliyo 20 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud bayri nabiga maalina uu wuxuu lagu yiri raalima kuntihi ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka galaya afar marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima kuntihi asxaabtu waxay yiraahdeen ha أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أهل الجنة مركز صدح لو غيبيو قيبنا النغطان ما كنتي رالي بأن هيدا دين مركز النبي يري والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وحان رجينا يا وكل رجوين هاي كي أبو ريبا كل دارتي الجنة دينا تكلبك إني كنت إيسان من كل رجوين هاي برسولكم إلهي يمدي سيبي لقدي إلهي وين كرامي نقول كرامي وامحي أمدي هره شيء كلي يوم بالغربي كلي بس إلهي إني كي أباني عابدان أما أمدا لبس شيء بالغربا لبس شيء إلهي إنا كي يبتوى بالغربا إلهي إنا عبد بالغربا آخرنا إنا وتخشت بالغربا خلقك أجيرك وقولنا لبشرية دا إنا أرنسا وقوية دنا بالغربا مقر النبي وعد ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم مرب النبي عمري سحجي مركلي markiina wuxuu yidhi ani nabiga dambe ma jiro ummada naga dambaysaana ma jirte alaa falyuballigha shaahida minkum alghaiba kiina maanta ila joogay maqlayow kiina maqgaarsiibu rasuulku alayhi salaatu wasalaam بلغوا عني أدوا عني رحمكم الله الله إنين حتى أما أنا قادوا عالم كي قارسيا اللهم اصر من نصر دين محمد إله نكي دين تيدا أوقر برسولكم دي نظر الله إمران سمع مقالتي ما ننسى وجيد أي مدوباني البنك قيامة وجيكي سألها نوريو نكا على آيات عم هالحديث سيقم مغلي سر يقم مغلي ومدو قارسيا ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدن ومد إلهي دورتي شرفت آية كرامة ومد وحي كويالتي وشقد نبينا عليه الصلاة والسلام شقداس markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwada markii laga tagay dhibaatada timaday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتين سكر حول دقتين أبو جلستان هي بيرها قولتان تجارة أبو كعدان سقدي دينتي دلالكي هلقا دينتي أتكتكتان لا يدلي من يدلي نيساري ما يدلي نيسيري مايو إلا دينتي أبو نغطان ما هي إلى دينكم بل إلى دينكم دينت واحد باقي نغنسا صلاة معها صونك معها حجك معها دينت واحد باقي نغنسا في كل زمان وإن لها جهد الدعوة مرة اللي مركز دين دراسة دعوة إلهي وحصوص على علماء ربانيين مر لبعض سوء عصبوني في ستوحيد في إيمانك هي أخلاق الإسلام كلها ديك مؤذن كأمركو إعلام يمو رسولكو يري شيطانكو قفكو وكبحا لحية وانما الموت في الصعداء
isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muwaadinku aadaanka dhameeyana wuu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhigtana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisiiyo qofkiibuu kala dhex maraa wixii uu iloway buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo ku tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan layahay uu sunnaha uga baxsanayaa lana eedaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nabigu yidhi tog shaydaanna toga galuu ka sii wacdaa lianna cumar saaxibulxaq buu ahaa saaxibulxaq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allahuma rabba hadihi dacwati taama lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falama nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay usoo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidee ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacamar wajhu saacatan fiya dadka aniga caasinaya keyrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoomino kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab balay ألا وصلوا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى منعم isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmada yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaan ay ka dhaxaysaa. nicmada weynina dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmada yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatu liijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa wakti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da'diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, imikana waxba ma tihi, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi, waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiil iga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga garto, aniga adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen, ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annagaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi, innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bini aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri. beriga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warazaqnaahum min adayibaat. arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay.
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا خلق فربضان سميين إنسان كان ككرامة يبا إلهي marka nicmatu al-insaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmada muslimiinta kaliya gaar uma ee balka kale aan muslimkayn ba nicmada uu la wadaaga waa bashar kama diisiga calaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu sameeyay caabudaya iyo ka muslimka ilaahay caabudaya ba nicmadaas waa u dhaxaysaayo dadka dhan waa bani aadam weeyaan nicmada yar waxa kale oo kamid ah la yiri arsaaqadu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay مسلمين سجار ومسيء بل قوة كلنا أرزاق دوسيا عبدي لك علي رزقك ولي عليك فريضة إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك أظنك يجيب إلى هيري أدينا واجباتي أوامري أحكام كساري أنا قلنا أرزاق دادي بلن قادينا كسينا يو حديث فرائدي واجباتي أن كساري أتكتكتنا أنا أرزاق دكاغ وصنما إلى هيري أرزاق دوان نعمد ويان لكن والنعمد عامة ضدك ودم كده حيسا نبي إبراهيم عليه السلام مرتقات أدو جعلا كل يعنت معونين إلا مرتي أولا رسد ما هنا من مرتي آيا أوي مدي مركز الناف وقالي عنتدي بقولي مركو ننكي عنتدي وفريستي آيا ننكي هالكا وحكوسي تاسنب ويسوي سميستي خشبوا عابدي هالكا كوسي تا مركز قاسر كي بكسو داعي إبراهيم عليه السلام وكعرضي عوري صعب وكمسيني عنتدي لأنك غير الله بعد عبده وكسر على نيكي جبريل بهوي مدى عليه السلام يا إبراهيم إلهي وكسر سلامة يا وحونا كايري أدون كما حادو يريد العنطر السيويدي مركز سيدي يا ربي إبراهيم عليه السلام حلقوا يقاني دائما عقيدة دي التوحيد كسو عجيبها أفن لكم ولما تعبدون بودي إني في واحد عبد الإنسان بأفن نيجيبودي وعلمين كاس إلهي غير كي وعبدي هونسك وحيستي يا جبريل إلهي بار يا جبريل كل خليل كيغا ممالين كلي يكوي مدى العنطر السيني ويدي تضباطا سنو سنبكا وسميستي عابدان ولبا كو أرزاقا با إلهي رزاق وا إلهي أرزاق دوا نعمد ويان نعمد داسي قال إسلام بواو سمنتهي بشر عقلك وا نعمد ويان عقلك ددك كلبا وي كلا وداغان مقلك وا نعمد ويان نعمد مقلك ددكو دنبا كلا وداغا أرق وا نعمد ويان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay iminka waxba garanay markaasuu maqal inii yeelay arag buu ni siiyey qalbi buu ni siiyey bashar buu niga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa wancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin famin allah wamaa bikum min nicmatin famin allah waxaa nicmada